daahir cali kulmiye gudoomiyaha guud ee ururka Alfatras oo wehelinayo agaasimaha guud ee ururkaasi Cabdisalaan Muumin oo safarkooda shaqo ku jooga gobolka Awdal ayaa maanta deegaanka Dareemacaane ka dhagax dhigay ceelbiyoodu ururka Alfatras ka hirgeliyay deegaankaasi waxa uu deegaankani ka mid yahay deegaanada dhinaca biyaha ugu baahida badan mana jirto wax reeg biyoodi ah ama ceelbiyoodi ah oo ka agadhow waxaana ugu horeyn goobtii dhagax dhiga ceelbiyoodkaasi ka hadlay qaar ka mid odayaasha deegaankaasi oo soo dhaweeyay ceelkana ay ka hirgeliyeen mas'uuliyiinta ururka Alfatras deegaankaasi meeshan waxa dhaamay haddaan taaganahay waa Dareemacaane waa qaryo runtii aad u ballaaran dadku markay imika buurahan dadku kala jirjira waxay moodaan dadku dad yar yahay laakiin hadda dadku dad yar ma meel ugu yara taqriiban ilaa 200 oo qoys ayaa meesha ku nool dadkaasi waxay u qaybsamaan beeraley iyo xoolo dhaqato waliba xoolo dhaqatada ayay inta badan u badan yihiin beeruhuna magaraysa de wala yaqaanayo waa badooxii Dareemacaane dadku ay ogaayeen dadku magaraysa xoolo meesha magaraysa dadka beeraha degan khudradaha yar yar ee magaraysa maanta wax ka sii daba helayaan iyo ku beertiisii wax ka beeran jiray dad isku dul nool bay haayeen laakiin markay arrintan maanta ballaaran ay dhacday runtii waxa weeyaan kii beerta lahaana faruhuba ka qaaday kii kase wax ka sii qaadanayina isaguna de hadalkayga ba iska daa mashaqa maanta ka dhacay runtii waxa weeyaan hadda maanta dadkii buuraha ka beeraha lahaa iyo dadkan beeraha leena wada cabayay kii beerta lahaa kolku ceelkiiba gabay kii kale waxa xaqiiqaha in qoysaska qaarkood maanta ay magaraysa dalcid rumaysan meesha Dareemacaane ayaa biyo lagu aan masaajidkaasi booyad baan uga soo qaaday Boorama oo halka lagu shubay biyo lagu shubay hay'adda Alfatras ee magaraysa hadda dhalinyartani maanta ka socdaan aad baan runtii ugu mahadnaqaynaa ceelkale hatana de dooxu magaraysa ma ka feenayay inaad soo biirisaan oo dooxa xagal walba dadku wuxuu xagal badan yahay xagal walba baahidaas ay maanta ka jirta aad ka soo dabooshaan si kolba waxay nagu soo gaaraan haddii aad maanta ka noogu soo bilowdeen waxaan rajaynaynaa ka iyo kuwa kale ka badanba inaan dooxa insha Allah tacaala ay noo suurta gasho ilaa inoo suurta jeedinayna cidda walaalaha ayaa ee haddii la yiraahdo noo keentay ceelasha biyaha midda kale biyuhu in qaliil bay nagu galeen jiilaalka haddii la yiraahdo iyada oo beeraha intaa ku ceelle iyo ku aan lahaynba iyada oo haddii la yiraahdo biyo la'aan la isku gaaray iyo ilaahayay guga nala soo gaaray sida aawadeed de waan jecel lahay inay biyuhu noo beeraan oo ilaahayay noo beeriyo idinkuna aad noogu dadaashaan haddii la yiraahdo de waan idinku mahadnaqaynaa ilaaha horta raxmaana iyo de iskale wax walba sida waxa weeyaan beeluhu de way badan yihiin waxa iskuulada iyo haddii la yiraahdo inta hareeraha inaga xigtaayba haddii la yiraahdo de way u baahan yihiin biyo aad bay ugu baahan yihiin biyo la'aan sida been kuma sheegaya markhaati baa laga yahay waa la waayay biyo maanta meel xun bay naga galeen ilaahay mahadiha ka gaadhay hadda de noogu dadaashiin waan idinku mahadnaqaynaa boqolkiiba boqol baan idinku mahadnaqaynaa waan idin ducaynaynaa inamadayadii baa tihiin walaalaha ayaa tihiin wixii kolba aadna soo yar gaadhsiin kartiin ee annagana wax noo ah waan idinku mahadnaqaynaa gudoomiyaha ururka Alfatras daahir cali kulmiye oo dhankiisa goobtaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyay ceelbiyoodkan ururka Alfatras uu ka hirgeliyay deegaanka Dareemacaane maanta waxaan nimid tuulo Dareemacaane aad iyo aad baan maanta shucuurteen u kacsan tahay markii waa farxadii noogu weyneed haddii aan ururka Alfatras waa ceelkii ugu horeeyay aan maanta dhagax dhignay waa qoditaankii aniga iyo Cabdisalaan maanta iyo dadka lacagaha soo dhiibtay waxaan leenahay sadaqada aad soo dhiibateen maanta waajibkeeda markino waad arkaysaan u soo duceeyay dadka dad waa beeraley sidoo wadaadku noo sheegay iyo adeerkeenba waa dad xoolo dhaqato ah waa lagu dhiban yahay biyo la'aanta qof walba ilaahay wajigiisa xog soo dhiibinaya ceelkan maahan insha Allah tacaala aniga gudoomiye waxaan rabaa ceelal badan inaan meelo badan ka qodno marka waxa loo baahan qof walba oo magaca islaamka wajahan inuu soo dhiibto wixii sadaqa ah wadankii abaara ka jiro biyo la'aan baa ka dhacday waxa kaliya dadkan ay ku noolaan karaan waa biyaha qofka bini'aadanka ilaahay quraan ku sheegay biyo la'aan qof noolaan karta ma jirto raashin kastoo haystid marka waxaan rabaa halkan inaan uga diro baaq dadka magaca islaamka ku wajahan meel walba ay joogaan in la ogaado dhulkii hooyo meel walba laga ogaado ururka Alfatras oo muddooyinkii u dambeysay waa ku mashquulsanaa wax ka qabashada dadkii abaaruhu saameynta xoogan ku yeesheen isla markaasna marayay deegaanada galbeedka Soomaaliland ayaa hirgelinta ceelkan biyoodka ee ay ka hirgeliyeen deegaanka Dareemacaane waxa uu ka mid yahay waxyaabaha wax qabadka ah ay ka sameeyeen deegaanada galbeedka Soomaaliland نجيب عبد الولي عبد الحيس تلفزيون عالمي يونيفرسال
boorama.